بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو وناكسن داوديال صاحبيال ميل كستو أجوبتان وافري لباتن كبش مي سنة كلا بكون لباتن إيا الليح مالين أين أحدا waxaan ku hormarayaa waa bariga maanta qaraxii ugu cuslaa ayaa laga maqlay magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta saacadoon kadib markii la sheegay in heshiis laga gaari doono wada hadallada Iran iyo sidoo kale Mareykanka u dhaxeeya muuqaalada la soo bandhiga ayaa muujinaya qayb aad u weyn oo magaalada kamid ah oo gubanaysa iyadoo la isweydiiyay tani ma caraba waa maxay sababta ka dambaysa mise Israa'iiliyiinta waxay bartilmaameedsanayaan goobo ugu yaraan ay tuhmayaan inay ku sugan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan xoogagga iska caabinta faahfaahin dheeraada lagama hayo qaraxan oo waa barigii maanta dhacay laakiin waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah dhinaca dawladda Sacuudigana waxay aad u adkaysay amniga guud ahaan ee xujayda sanadkan iyadoo nidaam difaaciid la dhigay qaybo badan oo kamid ah magaalooyinka dalkaasi Sacuudiga nidaam difaaciidkan ayaa xitaa banaanka loo soo bixiyay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Sacuudiga ayaa soo bandhigtay sawirrada muujinaya goobaha la geeyay nidaam difaaciidkan si amniga guud ahaan ee dalka Sacuudiga loo xaqiijiyo maadaama malaayiin ruux ay ku sugan yihiin sidaas oo kalena ciidan tiro badan oo loogu talagalay amniga xujayda ayaa lagu daadiyay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gudaha dalka Sacuudiga gaar ahaan magaalada Makka al-Mukarrama qaliijka ayaa weerar kala duwan la kulmay intii dagaalkii ugu dambeeyay uu socday laakiin magaalada Makka marnaba ma aanay gaarin duqeymaha inkastoo Jidda iyo agagaarkeeda mararka qaarkii ay gantaalada gaarayeen iyo diyaaradaha droniska ee dawladda Iran iyo magaalada kale oo Riyaad oo caasimada dalkaasi Sacuudiga ah waxyaabaha ka soo kordha qodobadaas barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah Iran waxay waa barigii maanta ay shaacisay in ay toogteen mid kamid ah basaasiin la sheegay inuu la shaqeynayay hay'adaha sirdoonka ee Israel kaas oo gudbiyo xog xasaasi ah oo ku saabsan goobaha wax soo saarka warshadaha difaaca ee dawladda Iran magaca basaaskan waxa lagu sheegay Mujtaba Kain waxaana lagu waramayaa in intii dagaalka lagu guda jiray oo Israel la wadaagay xog muhiim ah iyo sidoo kale isku duwidna inuu ka shaqeeyay si gaar ahaanna uu basaasay mid kamid ah warshadaha ka shaqeeya difaaca ama hubka ee dawladda Iran sidoo kale wararka tasniim ee dawladda Iran ee baahisay Mujtaba Kain ayaa fariintiisa waxa la sheegay inuu ku xusay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu isaga oo dadkii uu la xiriiray ku yiri arrintan u sheega Bibi ama Netanyahu wakaalada tasniim waxay sheegtay in xukunka dilka ah lagu furiyay ninkan kadib markii dacwadiisii maxkamad la horgeeyay xilli dacwadda ay ka socotay gobolka lagu magacaabo Alborz maxkamadda sare ee racfaanka qarankana waxay ansixisay xukunka qirashadiisii kadibna waxa uu sheegay kadib markii aan fariin u diray kanaalka telefishinka waxay isiiyeen lambarka aan xogta ugu diri doono kadibna nambarkii la isiiyay ayaan xog walba aan ku dirayay baaritaano la sameeyay ayaa muujinaya in xogo badan uu gudbiyay ninkan maanta ayaana lagu waramayaa in lagu fuliyay xukunka dilka ah dhinaca kale saacadii ugu dambeeyay isbedel weyn ayaa ku yimid wada hadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo dawladda Iran waxa sheekada si toos ah ugu soo biirtay dawladda Qatar waati aan idin sheegay wafdi ka socda dawladda Qatar in jimcihii ay gaareen magaalada Tehran oo caasimada Iran ama mas'uuliyiinta dawladda Iran ay la kulmeen waxa ku xigay wafdigu uu hogaaminayay Azim Munir taliyaha ugu sareeya ciidanka dawladda Pakistan wada hadalladaasi waxay keeneen marka in waxyaabo badan la isku fahmo dawladda Qatarna ay door weyn ay ciyaarto isla markaana ay ku qanciso Iran iyo Mareykanka in waqtigii heshiiska la joogo wax badan laga tanaasulo labada dhinac ma dhaqaale ayaa lagu bixiyay ma damaanad qaad kale ayay sameysay ma iyada ayaa hubka uraniumta ama waxyaabaha la bacrimiyay la geyn doonaa waa waxyaabaha la isweydiinayo Azim Munir intii uu ku sugnaa magaalada Tehran wuxuu mar ku sigtay inuu xitaa iclaamiyo dagaalkii in la soo gabagabeeyay laakiin Mareykanka ayaa wuxuu ku yiri maya waa inaan wada hadal yeelanaa go'aanka ugu dambeeyana aniga ayaa qaadanaya ayuu yiri madaxweyne Trump saacadaha soo socda haddaba waxa la soo bandhigay waxyaabaha ama qodobada hordhaca ah ee suuragalka ay tahay in gabi ahaanba heshiis laga gaaro laguna soo afjaro dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo sidoo kale Iran waxyaabaha qaar muddo 60 maalmood ayaa loo baahan doonaa si looga sii wada hadlo arrimahaasina waxaa qayb ka ah barnaamijka nuclearka laakiin waxa jira qodobo si hordhaca la isku fahmay oo labada dawladood dadaal badan ay ku bixiyeen waa Pakistan iyo Qatar markii dambana arrinta ay si toos ugu soo biireen Imaaraadka Carabta Sacuudiga Masar iyo xitaa dawladda Turkiga wargeyska Axios oo aad ugu dhow Mareykanka waxa uu baahinayaa in qodobada lagu heshiiyay uu ugu horeeyo qodobka ah marinka Hormuz waxa la sheegay inuu furnaan doono inta lagu guda jiro muddada heshiiska
waa 60 maalin ee la doonayo in qodobada waaweyn laga wada hadlo. wax canshuura waxaa la sheegay inaan laga qaadi doonin maraakiibta ka gudbi doonta marinka Hormuz. Iiraan waxay ballan qaaday sida la sheegay in ay miinooyinka dhanka badda ay saari doonto si loo xaqiijiyo badqabka maraakiibta iyo xorriyadda maraakiibta caalamiga ee halkaasi ka gudbaya, waana waxyaabaha lagu qanciyo dowladda Iiraan inay ogolaato. waxa soo baxaya Shiinuhu inuu dowladda Iiraan uu ku cadaadiyo hal qodob oo muhiim ah inay ka tanaasusho oo ay ku dhaganaayeen tan iyo wada hadalka. qodobkaas oo ah in wada hadalka lagu soo daro qodobkaas oo ah in dowladda Iiraan magdhow laga siiyo qasaarihii gaaray dagaalka inta uu socday. taa beddelkeedana waxaa la yidhi waxyaabo kale ayaa lagugu bedelayaa. arrinta labaad ee lagu heshiiyey sida hordhaca ah waa dekadaha iyo shidaalka dowladda Iiraan. Mareykanka waxaa la sheegay inuu fududayn doono qaar ka mid ah xayiraadaha saaran dekadaha dowladda Iiraan, waxaana la sheegay in la siin doono ama loogu bedelan doono dowladda Iiraan inay dib u dhoofiso shidaalkeeda si ay ugu yaraan lacagtii magdhowga ahayd halkaas loogu bedelo. Tallaabadan waxaa la filayaa in lagu taageero dhaqaalaha dowladda Iiraan, isla markaana ay arrintan hoos u dhigto walaaca suuqyada tamarta ee dunida. arrinta saddexaad waa xayiraada dowladda Iiraan in laga qaado. heshiisku wuxuu ku saleysan yahay in la fuliyo tallaabooyin la isku raacay oo ah in cunaqabataynta dowladda Iiraan la fududeeyo, xayiraada si tartiib loo yareyn doono iyada oo lagu saleynayo sida dowladda Iiraan ay u fuliso waajibaadkeeda, yacni waxyaabaha iyada xaggeeda laga doonayo, gaar ahaan sugidda amniga maraakiibta, miinooyinkana ay gebi ahaan ay ka saarto marinka Hormuz. Iiraan marka waxay weli ku adkaysanaysaa in cunaqabataynta si degdeg ah loo qaado, loona sii daayo dhammaan hantida kaga xayiran wadamo badan oo caalamka ah. weliba Qatar ayaa ka mid ah u maleynaya meelaha lacagaha ay kaga xayiran yihiin. Mareykanka dhankiisa wuxuu dalbanayaa in sida Iiraan ay doonayso in si tartiib barnaamijka nuclear-ka looga wada hadlo, in arrintaani sidaas oo kale si tartiib looga wada hadlo, ugu yaraanna mar qura aan loo sii wada deynin dhammaan hantida dowladda Iiraan ka xayiran. waxaana uu dalbanayaa tallaabo muuqan karaysa inaan la qaadin cunaqabatayn joogto ah, laakiin si tartiib loo qaadi doono. arrinta ugu muhiimsan waa barnaamijka nuclear-ka oo Iiraan war ay ka soo saarto on kula wadaagi doono, warbaahinta Mareykankana war kale ay baahinayaan. Iiraan waxaa la sheegay inay ballan qaadayso in aysan samayn doonin hub nuclear ah. waxay geli doontaa wada hadallo ku saabsan hakinta kobcinta uraniumta, sidoo kalena waxaa laga wada hadli doonaa sidii loo maareyn lahaa ama loo yareyn lahaa kaydka uraniumta ee hadda la hodmiyo oo Iiraan ay gacanta ay ku hayso. wararka qaar waxay sheegayaan in dhexdhexaadiyaasha ay soo jeediyeen in 12 sano dowladda Iiraan ay ogolaato in wax bacrimina aysan samayn doonin. waxaana soo baxaya ugu yaraan Iiraaniyiinta taas inay u dhow yihiin inay ogolaadaan, iyagoo diidaya 20 sano oo Mareykanka uu soo jeediyey, iyagana waxay doonayeen 5 sano, laakiin meel dhexe ay hadda la isugu imaanaya. ilaa xog ogaalka waxay sheegayaan xukuumadda Tehran in dhexdhexaadiyaasha ay u gudbisay ballanqaadyo afka ah oo muujinaya diyaar garowga ay ugu jirto dabacsanaan dheeraada haddii Mareykanka uu doonayo in laga wada xaajoodo dhammaan cunaqabataynta in laga qaado dowladda Iiraan, hantida dowladda Iiraan ka maqana loo sii daayo. yacni inay taa ogolaan doonaan barnaamijka nuclear-ka haddii hantida tirada badan ee wadamo badan kaga xaniban loo fasaxo, sidoo kalena cunaqabataynta si toos ah looga wada qaado dhammaan Iiraan hay-adaheeda kala duwan. laba qodob oo kale oo muhiim ayaa jira, waa joogitaanka ciidanka Mareykanka iyo arrinta Lubnaan. Mareykanka waxaa lagu warramayaa inuu ogolaan doono in ciidamadiisa ku hareeraysan dalka Iiraan gebi ahaanba la saari doono iyo ciidamada ku sugan qaar ka mid ah dowladaha gobolka. arrinta Lubnaan waxaa lagu warramayaa in Iiraan ay gebi ahaan diiday in dagaalka Lubnaan uu sii socdo, Xuutiyiinta iyo Xisbullahna la duqeeyo. Mareykanka marka wuxuu warbaahinta iyo dhexdhexaadiyaashaba u sheegay haddii Xisbullah heshiiska ay jibiso Israel inay xaq u leedahay inay jawaab ay bixin doonto, iyada oo laga shaqeynaya mabda ah deganaansho guud ahaan oo gobolka ah. saacadaha soo socda marka waxaa suuragal ah in heshiis lagu dhawaaqo, ma 48 saac soo socota mise 24 saac soo socota. mas-uuliyiinta dowladda Pakistan ayaa tagi doona magaalada Washington, sidaas oo kalena waxaa soo baxaya in dowladda Qatar mas-uuliin ka socota Washington ay tagi doonaan. tani marka ma waxay ka dhigan tahay madaxweyne Trump waa uu isdhiibay, waxa uu ogolaanayaa heshiis nabadeed maadaama uu awood ama military guud ahaan ku keeni waayay waxyaabihii uu doonayay. marinka Hormuzna waxaa la sheegay in lagu maamuli doono nidaam dowladda Iiraan iyo Cumaan u dhaxeeya, waatii ay saacadii ugu dambeeyay ka wada hadlayeen arrimahan. qaab dhismeedka gobolka marka la eego, Iiraan ayaa ka soo baxaysa dagaalkan iyadoo aad moodo weli yacni awoodeedii inay jirto, lana fashiliyay qorshe kasta oo la doonayo in lagu kala dhantaalo iyada iyo saaxiibadeed, yacni xulafadeeda dhanka gobolka ah.
wargeyska New York Times wuxuu leeyahay madaxweyne Trump kaliya ayaa go'aankan qaatay, Netanyahu wuxuu u muuqanayaa banaanka mid ka taagan, taasoo keeni karaysa Netanyahu inuu mar kale uu ka caroodo isla markaana uu aqbalo qodobada qaar ee heshiiska, inkastoo madaxweyne Trump la sheegay inuu ku cadaadin doono. arrintan waxay dharbaaxo weyn ku noqonaysaa xukuumadda Netanyahu. warbixinta New York Times waxaa lagu tilmaamay dharbaaxo siyaasadeed inay Netanyahu ay ku dhacday, taas oo qayb ka ah sumcadiisii iyo awoodiisii uu ku lahaa dhanka gobolka ama gudaha Israel xilli doorashooyin ay soo socdaan. waxaana heshiiskan la gaarayaa iyadoo yoolalkii Israel gabi ahaan aysan rumoobin kow in la riday nidaamkii dowladeed ee dowladda Iran, inaan la burburin barnaamijka nuclearka ee dowladda Iran, iyo sidoo kale inaan la soo afjarin barnaamijka gantaalada balastiga oo Israel walaac xooggan ku haya, iyo xitaa qodobka kale oo muhiimka oo ah xulafadii dowladda Iran inaan gabi ahaanba Iran gacanteeda laga bixin oo weli ay taagan tahay. waan u dhimanaya dadkaas si lamid ah sida ay annaga ay inoogu dhinteen. ugu dambeyntiina inkastoo warbaahinada qaar ee Mareykanka ay baahinayaan inay Iran barnaamijka nuclearka ay ogolaatay in dalka dibadiisa loo qaado, Qatar iyo wadamo kale ayaa si xana banaanka ku imaanaysa, laakiin warkan wili ma cadda maadaama sheekada ay cusub tahay. New York Times iyo warbaahinada kale ayaa warbixinadaasi qoray. haddana wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency oo Iran ka soo baxda ayaa sheegtay marnaba Iran inaysan arrintaasi ogolaanin, barnaamijka nuclearkana aan laga wada hadli doonin. midna ku darso oo haddii sheekadan ama qodobada sidaan hadda kugula wadaagay u dhacaan, waxay ka dhigan tahay dowladda Iran inay guul ay gaartay dhanka wada hadalka marka la eego. maxaa yeelay waxay mar walba ay ku taagnaayeen qodobka ah war marka hore dagaalka la joojiyo, kadib ayaan marxaladaha xiga iyo waxyaabaha la midka ah aan ka wada hadli doonaa. waan arki doonaa arrimahan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. like shan muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada, aad baad u mahadsan tahay.